wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado markaad gurigaada ka baxayso oo nabad aad haysato waxaad maanka ku haysaa in gurigaaga dib aad ugu soo laabato adigoo bad qaba haddaba maanta waa maalinta nabadda adduunka 21 September oo maanta kale adduunka laga xuso Soomaaliya ma tahay xilligan in nabadda laga xuso sidee nabadda waa lagu heli karaa maalinta nabadda weeye waa peace day ninka sida u yaqaano taa maalintii nabadda waaye ilaahay barwaaqa Allah na siiyo nabadda aad u weyneeyaan oo colaadana Allah naga reebo dhibkana haysana Allah naga qaado nabaddu waxay ku imaan kartaa qof kasta oo muxuu ahaay oo ummadan Soomaaliyeed kamid ah inuu qofka wax u geystay inuu ka cafis dalbado shakhsiyadiisa marka caalamka nabadda ay haystaan oo kale ilaahana isay karaa laakiin ummadan walaalaheena waxaan u sheegaynaa inay gacmaha isqabsadaan si kale aan ku heli karana male in la isku cafiyo oo lagu caafimaado oo barwaaqo ku dhalato aan jecelnahay haduu alla yiraahdo